maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa nin ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah maadaama uu xaas labaad guursaday isagoo aan ogolaasho ka haysanin afadiisii hore. maxkamadda ku taala magaalada Lahore ayaa ninkan ka diiday doodii isku difaacayay ee ahayd in diintiisu u ogoshahay inuu guursado 1 ilaa 4 xaas. balse xaaskiisa ayaa dooda ku guuleysatay waxayna isku difaacday in guursiga xaaska labaad oo iyadan fasax qoraal ah laga helin uu yahay mid xadgudub ka ah sharciga qoyska ee dalka Pakistan. garsoorihii maxkamadda ayaa waxa kale oo ninkan ku xukumay inuu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $2,000. dadka u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddu uu niyad jabinayo rag doonaya inay guursadaan xaasas badan. sidoo kale waxa ay sheegeen inay xoojinayso awoodda dumarka ayna sababi doonto in haween badani ay tagaan maxkamadaha. waa mid dhiirigelin leh in xaaska lagu xadgudbay ay kiiskan keento maxkamadda, ayay tiri Roma Bashir oo madax ka ah urur ka shaqeeya nabadda iyo horumarinta. dalka Pakistan ragga way guursan karaan xaasas kale, balse waa in fasax laga helaa xaaska koowaad ka hor guurka midda labaad. golaha arrimaha islaamka ee Pakistan oo aalaba dawladda kala taliya arrimaha diinta ayaa dhaleeceeyay sharciga qoyska. si kastaba soo jeedinta sharci ahaan meesha lagama saarin.